in aad muuqaal samaysaa oo aad barta YouTube ku soo gudbisaa ma ahan mid sahlan. Maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sida aan u sameeyo muuqaaladeyda. Midda koowaad waa inaan marka hore soo diyaarsadaa buug iyo qalin si aan u qorto scriptiga muuqaalkayga. Script waa diyaarinta muuqaalka waana midda ugu muhiimsan markii laga soo tago codka iyo editinka. Script waa markii aad qoranayso muuqaalkaaga waxa uu ku saabsan yahay iyadoo qoraal ah si aadan u iloobin, sababtoo ah wixii aad qorato inta badan lama iloobo. haddii aad u baahatana waad ka akhrisan kartaa markii aad ilowdo, si fudud ayaadna muuqaalka ku diyaarinaysaa. Midda labaad waa codka. Inta badan codka waxaan ku duubaa mobaylkayga oo ma haysto microphone. Si aan cod fasaxa idinkugu soo duubo, waxaan raadiyaa goob cidlo ah oo aysan buuq iyo qayli ka dhaweyn, si codkayga si wanaagsan aad ugu maqashaan. Haddii aan tago meel buuq ah, waxaa sahlanaanayso in ay qaylida iyo buuqa muuqaalka laga dhex maqlo, balse inta badan muuqaaladii sida wada aragteen qayli iyo waxaa laga maqlo. Waxaan tagaa goob cidlo ah anigoo kaliya mobaylkayga ku duuba codka, welibana soo edit gareeyo si wanaagsan in kugu soo gudbiyo. Midda saddexaad, editing. Inta badan muuqaaladeydu waxaan ku edit gareeyaa application CapCut. Waxaan si free ku helaa transitions, animations, sound effects wanaagsan anigoo aanan wax lacag ah bixinaynin. Haddii aan adeegsado softwarada sida Premiere Pro, haddii aan laptop haysan lahaa xitaa, waxaa dhibaato igu noqon lahayd inaan helo sound effects free ah. Balse application CapCut waxaad ka helaysaa sound effects free ah iyo animation free ah oo aad adeegsata muuqaalkaaga si professional ah u edit gareynaysaa. Haddii aad tahay qof dhalinyaro ah, waxaan kugu waaninayaa inaad barato application CapCut. way sahlan tahay inaad hesho oo Play Store-ka aad ka helaysaa ama App Store-ka haddii aad telefoonada iPhone ama Samsung isticmaasho. Haddii aad baratana wuxuu kaa caawinayaa inaad muuqaalada si professional u edit gareyso adiga oo aanan wax payment ama wax lacag ah bixinaynin. Waxaan jeclaystay inaan intaas in la wadaago. insha Allah muuqaalka ku xigana waxaan ka soo dhigi doonaa sida professional muuqaalo loogu edit gareeyo application CapCut, welibana keyframing iyo waxyaabo fara badan. muuqaalkaasina la soco channelka indhaha ku hay mar walba. insha Allah muuqaalkeena maanta ayuu nagu egyahay. hada wa salaam, peace and love.